kulan wacan wanaagsan asxaabtana daawanaysa in waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii murti iyo mahmaah oo dadka inta badan ay aad u jecel yihiin waa anigoo ah Cabdiraxmaan Bawaal Maxamuud oo aad u taqaanaan wariye Catoshare halka nagala socotaan waa Durdur Media caawa barnaamijka dad aad u badan ayaa soo codsaday oo dhahay Catoosh barnaamijkaas kaliya soo duub si aan u barano mahmaahyadaasi ay dhaheen in mahmaahyadu waxay isugu jiraan kuwa hore iyo kuwa iminka soo baxay anigoo Catoshare ayaa inala socodsiinayo saddex laguma faano na qurux badan guri kira ah iyo gaari tabal ah saddex looma heeliyo fuli dulmi badan nacas garmaqaata ah iyo naag maseer badan saddex looma gar qaad wiil iyo waalidkiis macallin iyo ardaygiis naag inin isjecel saddex dadka ayaa kugu nacayo baahi badan bugtaan badan iyo baryo badan saddex looma xiiso naag faan badan diris xan badan iyo suldaan qaylo badan saaxiib ma leedahay saaxiib xun mise waxaad leedahay saaxiib wanaagsan waa kuma saaxiibka ugu wanaagsan ee dunida aad jeceshahay inaad saaxiib aad ka dhigato waxaa jira saaxiibo qaar oo wanaagsan iyo kuwa xun kuwa waxaa jiro marka aad dhaqaale haysatid aad ku jeclaanayo marka aad faqiir tahayna ka cararayo waa kuma saaxiibka wanaagsan ee dunida la jeclaado waa saaxiibka dhib iyo dheef kula wadaago oo had iyo jeer ku jecel in aad wanaaga ka shaqeyso balse waxaa jiro saaxiibo qaar oo ka shaqeeya xumaanta saaxiibka hadii uu cadiya uu ku cadeynaya hadii uu madow yahayna uu ku madoweynayaa caruurnimadu waa cudurku waa jahligu waa masiibo ma garanaysa maxaa loola jeedaa maxay tahay caruurnimadu waa cudur laga koro daawadeedana waa qofka marka uu weynaado marka lagu leeyahay caruurnimo waa cudur ma ahan wax sahlan oo qofka marka uu yar yahay wuxuu ku jira xaalad xun oo kuriimo ayuu soo maraya wuxuu ogaanayaa wixii xun iyo wixiisan marka uu weynaado jahligu waa cudur loo baahan yahay in laga baxo jahliga waxa kaliya loogu baxaya waxay tahay inaad tahay adiga qof aqoonta barto hadii aad aqoon lahayn aqoon la'aan waa iftiin la'aan shirkadda elektarooniga casriga ee Sharib shirkadan oo ah shirkad caan ku ah qalabka elektarooniga caalamiga ah waxay ku suurta gelinaysaa inaad hesho qalab tayo leh oo aan koronto ka cuneynin adiga oo helaya firinjeerada qasaaladaha air conditionada makiinadaha cuntada iyo wixii elektaroonig ah oo aad u baahan tahay hadda aad oo ka dukaamayso xarunta Sharib oo ku taala suuqa Bakaaraha wixii faahfaahin ahna waxaad ka wici kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa Sharib Electronics Company marka lagu dhahayo waxay la mid tahay adigu markaad aqoon lahayn iyo marka aad aqoon tahay way kala duwan tahay waayo waxa u dhaxeeyo farqi aad u weyn farqiga oo ah laba wado mugdi ah iyo wado iftiin ah qofka jahligu markuu jahl yahay wuxuu haastaa cudur aad u wanaagsan cudur aad u xun iyo mid ay dadka la yaabaan waa maxay cudurku wuxuu yahay ma garanaysid wixii kuu soo socdo iyo wixii ka soo socdo sidoo kale mahma Soomaaliyeed ayaa waxay leedahay meel ka maqnaaw ama ka muuqdo dhagax meel dhow ayuu ku dhacaa dabaqna meel dheer ijiid aan ku jiido waa gacmo daalis hadal badan ha ma buuxsho daahana hortiis dafana ayaa joogo waa maxay markii lagu leeyahay ijiid aan ku jiido waa gacmo daalis waa maanta dhan marka aad dagaal ku jirtid ama qofka la celcelinayo fardo lasku haayo laskuma faaniyo oo fagaaraha ayaa lagu kala saaraa marka lagu leeyahay waxay tahay qofka markii fardaha lasku haayo lasku faaniyo lama oga waxay noqonayaan balse markii fagaaraha la keeno ayaa la ogaadaa dhagax meel dhow ayuu ku dhacay dabaqna meel dheer marka lagu leeyahay dhagax marka la tuurayo meel dhow ayuu ku dhacaa balse dhabaqiisa waxa laga maqlaa meel dheer doole bodbodkiisa waa mukulal xanaaqeeda marka lagu leeyahay yaani laba qof markay isku faanayaan ayaa loo soo qaataa mahmahdaas sidoo kale hadal badan ha ma buuxsho marka la leeyahay waxa weeyaan qof maanta dhan hadal wado oo hadalkiisa wax murti ah uu sulehin balse waxa loo baahan yahay waxa aad ku hadlayso inay yihiin wax mudan in bulshada loo soo jeediyo fadlan daawade muuqaalkan hadii uu ku soo gaaro si shirgaray barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid taxana ah oo aad kala socon doontaan channelka iyo page-ka Durdur Media waa wariye Catoshare idile sidaas inabadgaliyo waxaan ku soo gabagabaynaynaa kis yar oo dhaxtur ah
halkani waa durdur oo idin kala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaa naga dhageysan kartaa magaalooyinka qaar caawa madadaaladeyni waa naga intaas